bismillahirrahmanirrahiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani wareedka wararka barnaamij wareedka wararka qodobada aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah jamhadda canfarta oo duulaan ku soo qaaday galbeedka city gaar ahaan deegaanada allaale ee dowlad deegaanka Soomaalida waxayna halkaasi ka geysatay xasuuq dagaal xooggan ayaa maanta waxay ka soconayaan deegaanada canfarta iyo oromada xulafada jamhadda isbahaysiga Tigreega iyo oromada ayaa dagaalo culus waxa ay ka wadaan sidoo kale gobolka Sheewa waxaan idin soo gudbin doonaa wararkii uu dambeeyay ee dagaaladaasi ciidamada Tigreega ayaa sheegay inay qarka u saaran yihiin inay qabsadaan magaalada Mikane Silam waxaana halkaasi ka soconaya dagaal aad u xooggan madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Cagjar ayaa sheegay in lagu qaldamay in maamul kasta oo ka tirsan dalka Itoobiya oo samaysto ciidamo gaar ah jamhadda xoreynta Gambela ayaa sheegtay inay wado abaabul xooggan waxayna sidoo kale sheegeen inay weeraro ku qaadeen fariisimo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda Itoobiya qodobadaas oo faahfaahsan ayaad goordhow daawadayaal daawan doontaan balse daawade waxaynu kaa codsanaynaa inaad channelkeena raadka wararka subscribe saartid muuqaalkana like saartid oo sii share garaysid gambaleelka furo si ay muuqaaladeena si degdeg ah kuugu soo gaaraan jamhadda canfarta ayaa duulaan ku soo qaaday galbeedka city gaar ahaan deegaanada allaale ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya jamhadda canfarta ayaa la sheegay in halkaasi ay ku dishay dad Soomaaliyeed dadka ku dhaqan halkaasi ayaa la sheegay inay iska caabinayaan jamhadda canfarta ee duulaanka ku soo qaaday waxaana la sheegay in dagaal qaraar oo dhex maray oo ka dhashay qasaare xooggan jamhadda canfarta ayaa duulaan ku soo qaada deegaanada Soomaalida waxayna dhibaato xooggan u geysataa dadka Soomaaliyeed dadka halkaasi ku dhaqan ayaa waxa ay sheegeen inaysan soo gaarin wax gurmad ah oo kaga imaanaya dhanka dowlad deegaanka Soomaalida waxay sidoo kale sheegeen in jamhadda canfarta ay dhibaato xooggan ku hayso dadka Soomaaliyeed ee deegaanadaasi ku dhaqan dagaal xooggan ayaa waxa ay ka socdaan deegaanada canfarta iyo oromada jamhadaha isbahaysanaya ee Tigreega iyo Ola ayaa dagaalo culus waxa ay ka wadaan gobolka Sheewa sidoo kale dagaaladan ayaa waxa ay si xoog ah uga soconayaan deegaanada canfarta iyo oromada jamhadahan isbahaysanaya ayaa waxay sheegeen inay guulo ka gaareen dagaalada soconaya haatan saxafiyiin ku sugan ismaamulka oromada ayaa waxay xaqiijiyeen in gobolka Sheewa ay ka soconayaan dagaalo culus oo lagu riqmay waxay sidoo kale sheegeen inay jiraan qasaare xooggan oo ka dhashay dagaaladaasi sidoo kale saxafiyiinta ayaa waxay sheegeen inaysan jirin guulo ay kala gaareen labada dhinac balse xoogga jamhadaha ayaa waxay sheegeen inay qabsadeen fariisimo ay ku sugnaayeen ciidamada federaalka ee Itoobiya dhinaca kale dagaaladii sida xooliga ah kaga socday ismaamulka Amxaarada ayaa awood ahaan istaagay kadib markii xulafada Amxaarada iyo ciidanka militariga Itoobiya ay jareen buundooyinka webiga Hawaash iyo wadooyin kale oo muhiim ah xulafada Amxaarada iyo ciidanka militariga Itoobiya ayaa waxa la sheegay in gabi ahaan ay burburiyeen buundooyinka webiga Hawaash waxaana ciidamada Tigreega ku adkaatay inay halkaasi ka soo gudbaan dagaalada u dhaxeeya xulafada Amxaarada iyo ciidanka militariga Itoobiya iyo xoogga jamhadaha ayaa waxa ay haatan ka soconayaan dhanka iyo buuraleyda ismaamulka Amxaarada waxayna wararku sheegayaan in buuraleyda ismaamulka Amxaarada uu ka soconayo dagaal aad u xooggan kuwa ay isku adeegsanayaan labada dhinac hubka noocyadiisa kala duwan ciidamada Tigreega ayaa sheegay inay qarka u saaran yihiin inay qabsadaan magaalada Mikine Silam iyagoo sheegay inay haatan ku sugan yihiin duleedka magaaladaasi ciidamada Tigreega ayaa waxay sheegeen dagaal ay la galeen ciidanka federaalka Itoobiya in ay guulo ka gaareen waxay sidoo kale sheegeen in saacadaha soo socda ay gudaha u gali doonaan magaalada Mikine Silam xoogga Tigreega ayaa maalinkii Khamiisteed ay soo dhaafnay waxay qabsadeen magaalooyinka Kenta Ajbar iyo Fito sidoo kale waxay gacanta ku soo dhigeen magaalooyin kale duulaankan oo ay sheegeen inay hore u sii wadayaan xoogga Tigreega ayaa waxay sheegeen inay qarka u saaran yihiin in ay qabsadaan magaalada Mikine Silam oo ah goob istiraatiiji ah waxaana magaaladaasi marta wadada isku xirta gobolka Wolo iyo deegaanka Amxaarada intiisa kale xoogga Tigreega ayaa waxay sheegeen in saacadaha soo socda ay qabsan doonaan magaalada Mikine Silam waxayna haatan wadaan dadaal ay ku doonayaan sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen magaaladaasi Tigreega ayaa magaalooyin iyo deegaano badan ka qabsaday ciidanka federaalka ee Itoobiya waxaana haatan ay doonayaan inay qabsadaan goobo kale oo ay ku sugan yihiin ciidanka federaalka ee Itoobiya dagaal xooggan ayaana waxay ka soconayaan goobaha ay isku horfadhiyaan labada ciidan xoogga Tigreega ayaa waxay soo bandhigeen boqolaal askari oo ka tirsan ciidanka federaalka Itoobiya oo ay sheegeen inay ku qabteen dagaalada soconaya xoogga Tigreega ayaa sheegay in askartan oo boqolaal ah ay ku qabteen dagaalada xooggan ee ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya muuqaal ay soo bandhigeen xoogga Tigreega ayaa waxa laga arkay
askar aad u fara badan. Askarta qaar ka mid ah oo hadlay waxay sheegeen inay ka tirsanaayeen ciidanka federaalka Itoobiya. Askarta ay soo bandhigeen xoogga Tigreega ayaa waxaa ka muuqanaya qaarkood dhaawacyo ka soo gaaray dagaalada soconaya. Xoogga Tigreega ayaa waxay gacanta ku hayaan kumanaan askari oo ka tirsan ciidanka federaalka Itoobiya oo ay ku qabteen dagaalada soconayay muddada sanadka ah. madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Cagjar ayaa sheegay in lagu qaldamay in maamul kasta oo ka tirsan dalka Itoobiya loo sameeyay ciidamo amni oo u madax bannaan arrimaha amniga gobolada, isla markaasna arrintaasi aysan sii socon karin. Waxa uu sheegay in arrintan ay horseeday dhibaatooyinka amni darrada ah ee ka taagan haatan dalka Itoobiya. Mustafa Cagjar ayaa waxa uu yiri waa in dib u habeen lagu sameeyo hanaanka loo maro qoridda ciidamada, balse meesha laga saaro samaynta ciidamo kala duwan oo ay yeeshaan maamulada dalka Itoobiya lana helo hal ciidan oo guud ahaan dalka gacanta ku haya. madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Cagjar ayaa waxa uu sheegay sidoo kale in dowladda Itoobiya looga baahan yahay in ay sameyso ciidamo guud oo ilaaliya ammaanka dalka. waxa uu ka soo horjeestay in maamul kasta oo yeesho ciidamo u gaara. Mustafa Cagjar ayaa waxa uu si weyn uga soo horjeedaa in xoogga Tigreega ay la wareegaan talada dalka Itoobiya. waxa uu wada abaabul xooggan oo arrinkaasi ka dhan ah. kulamo ka dhan ah xoogga Tigreega ayaa waxa ay ka soconayaan magaalada Jigjiga. sidoo kale magaalada Jigjiga ayaa waxa ka dhacay banaanbax weyn oo looga soo horjeeday xoogga Tigreega. Mustafa Cagjar ayaa shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Itoobiya waxa uu baaqay in ay u diyaar garoobaan dagaalka ka dhanka ah xoogga Tigreega. dhinaca kale xoga la helay ayaa waxa ay sheegayaan in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay saanad ciidan u dirtay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. xogaha la helay ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynaha muddaxileedkiisa uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo saanad ciidan u diray dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. in ka badan 30 gaari oo sida saanad ciidan ayaa waxa la sheegay in ay u dhaqaaqeen dhanka dowlad deegaanka Soomaalida, iyadoo socdo abaabul xooggan oo dowladda Soomaaliya ay ku garab istaagayso dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Jamhadda Xoreynta Gambeella ayaa waxay sheegtay inay wadaan abaabul xooggan oo ka dhan ah ciidanka federaalka Itoobiya. jamhadda ayaa waxay sheegtay in weeraro culus ay ku qaadeen saldhigyo ciidamada dowladda federaalka Itoobiya ay ku leeyihiin goobo ka tirsan deegaanka Gambeella. ciidamada dowladda Itoobiya ayaa dagaalo adag waxay kula jiraan jamhado kala duwan oo ka dagaalamaya deegaano dhowr ah, waxayna jamhadda Gambeella ay ka mid tahay jamhadahaasi. jamhadda Xoreynta Gambeella ayaa sidoo kale waxay sheegeen inay haatan wadaan abaabullo xooggan oo ka dhan ah dowladda federaalka Itoobiya. sidoo kale waxayna dagaalo kula jiraan ciidamada maamulka sharciga ah ee Gambeella State. sidoo kale jamhadda Gambeella ayaa waxay sheegtay inay qabsadeen fariisimo ay ku sugnaayeen ciidamada federaalka Itoobiya. jamhadda Xoreynta Gambeella ayaa waxay ka mid tahay 9 jamhadood kuwa oo u midoobay sidii meesha looga saari lahay xukuumadda Abiy Ahmed. guud ahaan warka aad ka daawanayseen raadka wararka daawadayaal waa inaga intaa.